السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوان channelkeena Ihsaan. Maanta waxaan ka hadlaynaa qiso dhacday. Waxaan ku bilaabnaa sida anaga guriga dhexdiisa ku qosqoslayna ayaa albaabka xoog la soo qaraacay. Waan ka xisaan u soo furo laakiin qof aan hore u garanin ayaa albaabka taagnaa. Xoog buu i soo dhaafay isagoo waxba i weydiinin. Waxa uu dhaqaaqay dhinaca aabahay. waxa uu ku yiri aabahay Ilaahay ka cabso oo deynta iska bixi. In badan ayaan ku kaadiyay inta wax ka badan ku sugi maayo. Waxay ahayd dhacdo xanuun badan. Waan ka murugooday. Waxaan eegay walaalkay oo intuu adkaysan kari waayay ooyay. Intuu kacay walaalkay ayuu weydiiyay waa imsa deynta aabahay aad ku leedahay. waayo aabahayna lagama hadli jirin deynta lagu leeyahay laakiin isaga oo nasiin jiray lacagtaan u baahnaa. waxa uu yiri ninkii lacagta aabahan ku leenahay waa 9,000. waxa walaalkay yiri iskaga tag aabahay khayrna filo. waxa uu galay qorkiisa si uu soo saaro lacag. waxa uu keenay 7,000. walaalkay inta hadhayna sida uu dhaqsaha badan ayaan ku siinayna. waqtiga aabahay uu ooyay waa markii ugu horeysay ee aan arko isagoo ooyay aabahay. aabahay wuxuu dalbaday in lacagta loo soo celiyo ninkiisa laakiin walaalo ayaa diiday. ninkii baa baxay. walaalo dhinaca aaba ayuu u soo kacay. waxaan u sheegay inuu isagu ka qaalisan yahay lacagta. aaba uu duceeyay walaalo. anna walaalo ayaan weydiiyay lacagta halkaad ka keentay. waxa uu sheegay inuu lacagta u ururinayay muddo dheer si uu u guursado. laakiin maalintii labaad walaalo markuu shaqadiisa ka soo baxay ayaa waxa uu yimi mid ka mid ah saaxiibadiis oo aanu in badan is arag. isbahaliyow kadib isku dhadhaga kadib iswada shaqaysi kadib ninkii baa walaalkay wuxuu ku yiri inuu xalay wada fadhiyay nin taajir ah. waxa uu ninkii taajirka iga dalbaday inuu soo helo qof aamina oo akhlaaq wanaagsan. maana helo qof kaga wanaagsan shuruudaha. maxaad u aragtaa inaad shaqadaasi hore kaga tagtid si aan u qaabilno ganacsadaha. walaalkay farxad ayaa ku soo istaagtay. waxaan u yiri ducadii aabahay ayaa igu dhacday. habeennimadii ayay ahayd kulanku. ninkii ganacsada ahaa uu ku qancay walaalkay. wuxuu ku yiri ninkii ganacsadaha inka laga bilaabo lacagtaadu waa 15,000. waxaad leedahay guri 3 qol ah iyo gaadhi oo 6 bilood oo kaabis dhaqaalaana waad leedahay. aabahay ayaa ku yiri walaalo aabo khayr ku bushaarayso. waxa maqlay arinteeni ganacsadaha weyn. waxaanu amray in dhammaan deyntan laga bixiyo. aabo markastoo aad ixtiraamtid markastoo kuu duceeyo waa markastoo sharaf gaadhi oo qiimahaaguna u bato qiimahaaguna kor u kaco laguna qadariyo. intaad waalidkaa qadarinaysid ayaa adigana lagu qadarinayaa. ma allaale markaad waalidkaa dhulka ku tuurtid aad waalidkaad ka tagtid ayaa adigana lagaa tagayaa waqti doonta ha ahaato. waxaan ku nasteexanayaa inaad waalidkiin khayr ka shaqaysataan.